qisadan naxdinta leh waxay ugu dhacday 3 sano ka hor. Ugu horeyn waxaan rabaa inaan la sharaxo family-gayga si aad u fahantaan sheekadayda. Waxaa la noolaa hooyaday, aabahay iyo walaalkay iga weyn. Tan iyo waagii ay yareen waxaan maqli jirnay in hooyadeenoo qaylinaysa waxaa garaaci jiray aabahay, weliba si xun ayuu la dhaqmi jiray. Habeenkaa hooyadeen waxaa soo gaar dhaawacyo daran iyo nabaro aad u daran. balse hooyadii in badan nolosheeda waxay gashay khatar uga maanaysa dhanka iyo aabahay. Tan iyo dhacdaas xun kadib waxaan gaaray da'da 17. waxaan isku dayay maalinta inaan hor istaago aabahay kana joojiyo jirdilka ku hayo hooyaday, balse asi si fudud ayuu kala tuuray. dhulkii ayaan ku dhacay, waxaan eegay walaalkay isagoo aamusan aadna u xanaaqsan oo guriga ka baxay. dhab ahaantii waxaan fahmaynaysan jiray sababaan ku istaajin karo aabahay, balse maalintii xigtay aabahay wuxuu soo tuur dhalo kuna soo tuuray hooyaday. intaa kadib wuxuu soo qaatay midi si uu waxyeelo hooyaday, wuxuuna dhaawac daran u soo geystay dhanka gacanta. anigu waan awoodi kari waayay celisto ilinteeda. ilintii ay iga soo qabatay. intaa kadib qof ayaa albaabka soo gargaraacay, weliba si zaayid ah. aabahay asigoo celisan uu ku yiri waa kuma qofka albaabka soo garaacayo. qofkii albaabka iska soo gargaraacay weliba si zaayid ah. intaa kadib aabbo wuxuu u dhaqay dhanka albaabka si uu u furo qofkii, balse waxaan aragnay qof ka labsan dharka Joker-ka xirana maskaro. intaa kadib aabahay wuxuu ku qalay ninkii weliba inkaaray. aabbo wuxuu soo dhaqaaqay dhanka iyo gurigii, isla markiina waxaa ka soo daba dhaqaaqay ninkii wuxuuna madaxa ugu dhuftay buriskii. aabahay wuxuu ku dhacay dhulkii asigoo gariiraya aadna u dhig baxay. intaa kadib waxaan maqlay qofkii barooranaya oo la zaayid u oonay Joker-kii, wuxuuna bilaabay inuu baxo asigoo barooranaya. aan fahmi waayay sababta uu barooranayo. si wanaag daqiiqado gudahood waxay mid booliiskii waxayna qabteen ninkii. intaa kadib waxaan arkay arrin aan gagax leh. waan rumaysan karay waxaan arkay, maxaa yeelay isagu wuxuu ahaa walaalkay iga weyn. inkastoo oonayay balse uu dhoola cadeynayay, wuxuuna ku dhawaaqay eray ah haa waa sax, hadda wax walba way dhamaadeen, hadda wax walba way hagaageen. waa sax, anigu hadda ma awood inaan ilaawo dhacdadaas foosh xun kadib. waxaan ku noolahay nolol qarow ah, balse anigu weligii maan eedin asiga. tan waa sheekadeyda.